qof walba magaciisa iyo yardurkiisa iyo waxaan ku salaamayaa maamuuskiisa duuduubka salaanta ku qaadanaysaan waqti aan idinku kala sheego ma helayo salaanta kadib heestii aynu sara kacnay qaranka astaanta qaranka waxa ku jirtay geesiyadii dhiigooda u sadqeeyay gobonimada Soomaaliland horta kuwaana Ilaahay u naxariisto duceeya waan filayaa in taana iga aqbasheen inta kadib baarlamaankeenu wuxuu la mid yahay baarlamaanada caalamka waajibaadka iyo shaqooyinka laga doonayo baarlamaanka adduunka ayuun baa keenana laga rabaa sidii walaalkay barxad qodobo badan idin akhriyo maayo muddo dheer baan loo yarahaayo haddii aan qodobo taabto waqtiga aynan ka wada gaadhaynin shaqada baarlamaanka laga doonayo waa 3 qodob waxa weeyaan korjoogteyn ay hawlaha qaranku siday u socdaan oo baarlamaanku korjoogteeyo qodobka labaad waa xeer dejin qodobka saddexaadna waa matalaad intaas oo dhanna waxa keenaya horta wadankeena cid iska leh waa idinka iyo inta idinka maqan idinka idin la mid ah annaguna wakiiladiinii baanu nahay waxaanu wakiil ka nahay inaanu idin ilaalino wadankeena iyo sida la idinku shaqeynayo xeerarkii wadanka u degsanaa ma lagu shaqeynayaa lacagtiinii iyo hantidiinii sidaa doonayseen raallida ka ahaydeen ee idin danta ahayd ma la idinku shaqeynayaa xitaa saacadaha shaqada inaanu idin ilaalinaa baan wakiil ka nahay qodobka labaad ee baarlamaanka laga doonayaa waxa weeye inuu hirgeliyo mabaadida rasmiga ah ee dawladnimadeena ku dhisan tahay oo 3 mabda oo waaweyn waa awood qaybin aan awoodayno meel isugu ururin qodobka labaad waxa weeye isla xisaabtan ama check and balance qodobka saddexaadna waxa weeye wada tashi iyo is-aaminaad intaas oo dhan kadib qodobka inoo qaara ee xoqonaysaan waxa weeye in la soo celiyo haybadii golaha wakiiladu lahaan jiray ballanqaadka aan naga filaysaana waxa weeyaan waanu soo celinaynaa haybadii golaha wakiilada waxaanu idin ballan qaadaynaa inaanu sidan mar walba idin soo hor fadhiisano oo idinku annagana la xisaabtantaan annaguna aanu xukuumadda iyo cid waloo kaleba aanu la xisaabtanno waxaa ogtihiin dibadaha iyo Yurub iyo meelaha waynu ka wada warahaynaa mar kasta oo qofka xaalada ku soo korodho wuxuu yiraahdaa waxaan la tashanayaa looyarkayga ama MB-gaygu qof walba MB-gu waa qof lamaan waa mid dareen walba ka jawaaba qofka Hargeysa jooga ama Burco ama Boorama jooga ma yaqaano waxa MB-giisu qaban karayo iyo xaq uu ku leeyahay laakiin qofka reer Soomaaliland ee Bristol jooga ama London MB-giisu wuxuu qabto u yaqaana waxa naga maanta ku bishaaraysanaysaan inaa ogaataan ogaan doontaan waxa MB-yadiina soo doorateen ay idin qaban doonaan qodob u baasaxaya baarlamaanka Soomaaliland taariikhdiisu kama soo bilaabanto 1969 baarlamaanka Soomaaliland taariikhdiisu waxay ka soo bilaabantaa February 1960 oo baarlamaankii koobaad aynu soo dooranay go'aamadii baarlamaankeena si qaatay ilaa maanta nolosheena way la socdaan dawladnimadeennii aynu helay ee awoodadeenu soo halgameen taladii baarlamaankaas ay ku luntay ilaa maantana ay ku kala dhantaalan tahay baarlamaan walbana go'aanadu qaataa waa kuma saamayn doona jiilal aan marka baarlamaankaasi go'aanka qaadanayo aan loolayn insha Allahu tacaala baarlamaankan wuxuu noqon doonaa mid aayatiinkeena anfaca annagana waxa naga dhaba inaanu si ikhlaas iyo daacadnimo ah idinku shaqeyno waliba anaga waxa ay dheer anigu lacagna maan haysanin nin weyn oo la wada yaqaanana maan ahayn dadku kalsooni buu igu soo doortay marnaba idinima nabad jabin doono niyadiina aanu ilaalinaa waana mahadsantihiin